marka wasaaraddu waxa u degsan qorshayaal waaweyn baa u degsan oo hadda muddadan joogay aan aad u sii dardar gelinayno waad ogtahay oo dalka Soomaaliyeed burburku wuxuu kaga dhacay waa kaabayaashii dhaqaalaha weyn hadday wadooyinkii noqoto hadday dhismayaashii dawladeed noqoto xarumihii dawladeed iyo hadday noqoto mashaariicdii dawladeed ee muxuu ahaa shaqaynaysay iyo infrastructure-kii ay lahayd dhammaan kuwaasaa markaasi burburay meesha burburku ka muuqdaay marka Soomaaliya la yiraahdo waxa weeye waa hantidii dawladeed ay lahayd iyo kaabayaashii dhaqaale weyn marka sidii dib loogu soo celin lahaa waa laga maarmaan waa baabuur muxuu ahaayay taayiradii beelay oo muxuu ahaayay buurigii burburay oo mugtay dhulka yaala weey sidii loo soo kicin lahaa ayaa markaasi muxuu ahaa ay hawshiisu ay tahay wax fudud ma aha waxay u baahan tahay qorshayaal dhaadheer waxay u baahan tahay muddo iyo waqti in la siiyo waxay u baahan tahay shaqo muxuu ahaayay aan kala joogsi lahayn waxay u baahan tahay muxuu ahaayay maalgelin iyo hanti ummadeed in dib loo geliyo iyo maskax in la geliyo u baahan tahay marka runtii hawlahaasi ma sahlana laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inaanu dib isku soo muxuu habayno muddadii hadda imika sanadkan 2024ka waxaa bilowday runtii iyadoo bangiga adduunka iyo dadka muxuu ahaayay la moogtahay taageera wadanka ay muxuu ahaayay runtii dadaal badan ku bixinayaan xilligii wasaaradda maaliyadda aan joogayna aan runtii dadaal weyn ku bixinay sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo soo celin lahaa loo soo kobcin lahaa waa wadooyinka marka mashaariic muxuu ahaayay African Development Bank iyo World Bank iyo muxuu ahaayay Europeanka yaa naga taageera muxuu ahaayay sidii dib loogu soo dhisi lahaa qorshayaashaasi qaarkood waa kuwa hadda socda oo muxuu ahaayay runtii dhaqangal ah kuwana waa kuwa qorshayaashoodii la dhisayo oo muxuu ahaayay la samaynayo waxa iskugu jiraan xagga muxuu ahaayay jidadka oo ah magaalooyinka dhexdooda ka isku xidha magaalooyinka ka isku xidha gobolada kuwii highway-yadii isku xidhay muxuu ahaayay wadanka isku xidhayay iyo corridorska muxuu ahaayay nagu xidha ee wadamada jaarka nagu xidha oo ay kamid yihiin midalan muxuu ahaayay Ethiopia nagu xidha ama Kenya nagu xidha kuwaas oo dhan baa runtii ay kamida maxaa yeelay dalkeenu wuxuu ku yaalaa meel istiraatiijiga oo muxuu ahaay gobol kastaba laga sameyn karo dekada laga sameyn karo dekadaheenii hore u jiray in dib loo casriyeeyo oo muxuu ahaa lagu xidho marka wadamada jaarka oo noqono suuqii iyo markaasi marketkii badii muxuu ahaay uga imanaysay muxuu ahaay ay wadamada ay uga imanaysay sidaa darteed baa waxaan muxuu ahaay in jid laga soo sameeyo Djibouti oo muxuu ahaa soo mara muxuu ahaay gobolada waqooyi oo Ethiopia u gudba halka laga sameeyo jid kala berbera ka baxayo oo halkaasi uu ka gudbo mid muxuu Muqdisho ka baxa oo markaasi Jawhar Beledweyne ilaa Feerfeer oo halkaasi uu markaasi uu ka gudbo jidad kale ay halkan ka baxaan ilaa Kismaayo oo halka ilaa Doobley ay markaasi muxuu ahaay ka baxaan marka khariidada jidad ee muxuu ahaayay wadanka iyo qorshayaashiisi baan muxuu ahaayay qaarna la sameeyay feasibility study daraasaadkii lagu sameeyo in muxuu ahaa la hawlgeliyo moogtay u baahan qaarkoodna ay markaasi in feasibility-gii la sameeyo daraasaad lagu sameeyo oo qiimeyn lagu sameeyo ay muxuu ahaa si loo maalgashado ay muxuu ahaa ay sameeyaan taas waa dhinaca jidadka weyn dhinaca kale waa magaalooyinkii si dib loo soo abuuri lahaa oo muxuu ahaa guriyeyntii baa kamid ah oo qorshayaashii magaalooyinkii iyo bilicdoodii iyo drainage-kii muxuu ahaa sewage-kii sidii loo hagaajin lahaa ee muxuu ahaa maabinkii sidii master plan loogu sameyn lahaa IDBs ka muxuu magaalooyinka dhex yaala sidii dib moogtahay loogu habayn lahaa sidii loo abuuri lahaa guriyo jaban oo muxuu ahaay dadkeenu ay degi karaan loo abuuri lahaa waa mashaariic waaweyn oo hadda qorshayaashiisa runtii aan wadno weeye waxa intaa dheer the infrastructure-ka muxuu ahaa dalka ee dawladdu ay dhisayso dhan oo ku baahsan wasaaradaha dalka ama isbitaaladii ha noqoto iyo iskuuladii iyo airportadii iyo muxuu ahaayay iyo dekadihiiba yeelan kara waxayna wasaaraddu ku leedahay role inay muxuu ahaayay ay mugtay tala ka bixiso oo injineeradeedu ka tala bixiyaan oo ay muxuu ahaayay ay qiimeyn ku samayso oo ay muxuu ahaayay supervision ay ku samayso kor joogteen ku samayso marka shaqada u taala wasaaraddu ma yara oo aad bay u weyn tahay qorshayaasheediina muxuu ahaayay inaan sameeynayna waxa hadda muxuu ahaa noo dejisan qorshaha qaran ee isbedelka kaasoo muxuu ahaa runtii hadda uu socdo oo daraasaadkiisii socdo
oo infrastructure-ku ka yahay muxuu ahaay laf dhabar uu aasaas ka yahay kaasna waxa lagu soo bandhigi doonaa qorshahan soo baxaya markaa sanadka bilowgiisa bilahan soo socda soo bixi doona ayaa markaa barnaamijka aanu qabanayno dhani runtii muxuu ahaay uu ku cadi